السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kusoo dhawaada daawadayaal niyad sami iyo kalgacayl. Maanta waxaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeennii sheeko qosol leh oo dhex martay ninkii caanka ah ee la oran jiray Oday Juxa iyo nin ay is yaqaaniin oo guri ka kireystay. Waxaa idiin daadihin doona aniga oo ah Maxamed Aadam. Kusoo dhawaada daawadayaal. Oday Juxa ayaa beri guri ka kireystay nin uu garanayay. Markii uu Juxa gurigii u soo guuray ayuu arkay ceeb aan gurigu ku ogeyn. Saqafka sare ee guriga oo jilicsanaa awgeed, guriga waxa uu lahaa shanqadh badan oo dabaysha ay lulayso. Juxa aroortii ayuu u soo cawday ninkii guriga ka kireeyay oo uu u sheegay inuu saqafka gurigu sanqadh badan sameynayo oo uu habeen iyo maalin uu seexan laayahay, sidaa awgeed ay tahay inuu ka sameeyo. Ninkii guriga lahaa ayaa ku yidhi, waxba ha ka baqin, saqafka alla ayuu u tasbiixsanayaa Juxow. Juxo oo fahmay in uu ninku khiyaameynayo oo weliba diin ku xujeynayo ayaa yidhi, waa runtaa amba waan ogahay, laakiin waxaan ka baqayaa in qalbi jileeciisu uu ka bato oo uu isagoo sujuudsan nagu soo duldhaco.